أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن خير كلام فوق لساني سهل في لفظ ومعاني حين حفظت كلام الله laga soo saaray magaaladii Madiina ee soo aaday dhanka Khaybar waayo Khaybar iyo Shaam bay u kala carareen waa markii amarayda suuratu Hashr raggii laga soo ciiriyay meesha Shaam iyo waxay u kala carareen Khaybar mar allaala markay meesha tageen ayaa kudii Khaybar aaday ciilkii iyo xanaaqii hayay darteed ayaa waxay xiriir la sameeyeen qabaa'ishii Quraysh iyo qabaa'il fara badan si ay naftooda uga argutaan قريش عيل قنيسا oo laga badiyay Badr oo Uhudna dhibaato kale la gaarsiiyay Egypt weyn oo mar'un Muhammad yaa ku duulay afgaan siisiina ay ka taagan tahay ay raggan soo galeen magaalada Makka Salaam ibn Abi Hamd lagu magacaabo Xuyay ibn Akhbar rag noocaas ahaa inta ka bacdiba intay u yimaadeen Abu Sufyaan oo marka Quraysh hogaaminayay ayaa waxay u sheegeen inay xarbi rabaan inay ku qaadaan Muhammad iyo muslimiintan ay dabar gooyaan ayaguna inay gacan siiyaan Abu Sufyaan baa la yiri war marka hore waxaad nooga jawaabtaa idinka ahlu kitaab war annaga iyo Muhammad keenee fiican yaa khayr ku taagan yaa wanaag ku socda taa marka hore nooga jawaab markaasay yiraahdeen idinka ka toosan oo ka hanuun badan wax ay yihiin Muhammad iyo dadkiisa ma jiro way sukaanin baatino beedka degantihiin xujeedad waraabisaan بيئي صديق باتسيسان كعبرات حاقضان سيدا دبتين إذنكا كغفي عن دنع والبا مركاسو ألا سودجي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وركوا رمضتك حالات رصاص أيتهاي نصيب كتاب أهل السيي جبت إيه طاغوت رمينايا شيطاني إبليس راعايا كافرين تنطهايا إذنكا كتوصن ضدك مؤمنين تقع انتا كبعدي وحي أسو جيهستيني سوء آذين قبيلة غطفان ليراهدو وآديات أحب بضن وآديات أهب بضن أيضا وحي كله الشيين مسلمين تإن لصوت افتراء لنا سود دبر قويو حالات فربضن قوانو عصا بعضي ولا ريال مركي أرنتو صار مريسو أيا نبي الله تشتيقي صحابتي كافرين ضمان حلفي سميستين waxay damceen inay sameeyaan hal mar inay baabi'iyaan oo ay dabargooyaan muslimiinta iyo nabigada xaaladdu markay meesha maraysay mushrikiinta laftigooda warqad bay u qoreen dadkii ayaga xulafada laayeen reer bani asad ayagana waxay dheen haye soo baxa ayagoo jameeco fara badan ah ciidan xoog leh ah aan laga hortegi karin aan la iska waabin karin ayay soo dhaqaaqeen baa la yiri tiradoodu waxay agaynaysay baa la tilmaamaa 10,000 10,000 oo isbahaysata ah yaa muslimiinta maalinta ku soo duushay imisay ahaayeen muslimiinta inta u dagaalamaysay 3,000 oo kaliya walaalayaal 3,000 oo kaliya ayay markaa ahaayeen xaaladda markay meesha maraysay la soo dhaqaaqay oo dhahraan meel la dhaha la soo degay sidaa darteed ayaa ciidanka faraha badan ayagoo wata maantana kama dambays go'aan lagu soo gaaray in la tirtiro islaam iyo muslimiin iyo wax allaala waxa ku abtirsadeen nabi Muhammad madax u yahay ayaa meesha la isugu yimid rasuulka sallallahu alayhi wasallam arintu markay meesha maraysay ee uu maqlay jamaca iyo xooga faraha badan inuu yimid muxuu sameeyay saxaabadiisa ayuu majlis shuura ah oo degdeg ah la qaatay wuu la tashtay iskama weyne كلجي تليا معهم أسوي وحي سماد وقصوا الدجايا يو هدنا صحابة الله تشانيا يو هدنا ويدينا يا محاصم يا وحي لقوا أمرين حتى مركب قبل كمية واحد عيسي هدي أريب الضمعة أصلا إنه صمي رأي سوجيديو رأي جيس رأي أنا هين أي صحابة كينان إنه كيس كتنزله ومتك صحابة أوقاته حالة بنا ويدي عدتي مركب قبل كمية صحابة أيو الله تشاري sidii tashib badan loo sameeyay waxa go'aan lagu gaaray in rag la iska celiyo Salman al-Farisi ila khayr fara badan hasiya asagana wuxuu dadka u jideeyay qandaq in la qodo god meelahan timirta iyo geedaha iyo guryaha ay ku yaalaan inta la iska daayo meesha af banaan in god dhufays oo khandaq ah laga qodo xaaladaas uu soo jeediyay annagu haddaan Farisiin nahay adaguna aysan nooga badan yihiin khandaq baan isku dhufaysaynaa
wax baan isku oodnaa godkaa in la qodo ayuu ishaaray. nebigana waa ku waafaqay sala allahu calayhi wasalam fikraddaa qiimaha badan ee la keenay, waxaana isla markii lagu dhaqaaqay in godkaa la qodo. looma kala harin, looma kala yaraysan. ciidankii intii joogtay meesha nebi moxamed uu ugu horeeyay sala allahu calayhi wasalam godka qoditaankiisii ayaa markaa la aaday. godka qoditaankiisii ayaa loo gudagalay ayadoo la rabo in laga degdego dhaqso intuusan ciidanku imaanin meeshana markaas soo gelin. rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisaba baahi bay ku sugnaayeen. xilligaa godkaa la qodahayay baahi ayaa markaa jirtay. tacaam yar bay haysteen oo shaciir ah, wax yar oo subag ah oo raaxadii isbedeshay kaabaa markaa lagu cunayay. 3 maalin casabo iyo calcalalo ee saxaabadii, weliba dhagaxna qaar baa sheegay inay ku xirteen. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu kala qayb qaadanayay. muslimiinta godka qoditaankiisa dhammaan way ka wada qaateen. farqi kama lahayn mid taajir iyo mid faqiir ah, mawle iyo mid amiir loo yahay. xataa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ciidduu guraayey, ciidduu qaadahayay, ilaa la tilmaamay calooshiisa caddaanteedu inay ciidda markaa qarisay. xaaladaasuu rasuulku ku sugnaa sala allahu calayhi wasalam uu ku hadlayay ama ay ku hadlayeen waxaa ka mid ahaa allahuma lawlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa salayna faanzil asakiinata calayna وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. رسولك وحدها هذا أذيب أهانها إلهي لولا أنت اللهم لولا أنت ما اهتدينا. هذا أذيب أهان لهين وأذن هنون لهين وبحقنا تصل لهين كفار تصل كلام نقول لهين ما ننهنوني ولا تصدقنا ولا صلينا مروا مين لهين ما صدقي صل لهين منتكن لهين ee sakiinii xasilooni allow nagu soo deji. wathabbit alaqdaam ilaahu gomdaheena sug haddaan cadowga la kulanno. kuwa isoo bahaysatada ah meeshaa soo fadhiistay qad baqaw calaynaa, rabba way nagu soo xadgudbeen, way nagu soo qooqeen, kibir iyo isla weyni bay la yimideen. haddiise fidne ay doonaan anagu waan diidnay oo markaa waa diidnay. codkooda kor buu ahaa. muslimiinta naftooda way tarjiisayeen maalinta. hadallaa afkooda ka soo baxayay way camal qabanayeen. hadallada ay ku hadlayeen saxaabadu waxaa ka mid ahaa naxnu aladiina baayacuu muxammadan, kuwii nebi moxamed la mubaayacooday cala alislaami baanu nahay. islaam baan nebi moxamed kula mubaayacoonay in allaala inta aan anagu jirno. maa baqiina abadan. rasuulku waa u ajiibo wuxuu yidhi allaahuma inahu laa khayra ilaa khayra alaakhira. ilaahu khayr aan khayrka aakhira ma ahayn ma jiro. riwaayad kale allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira fabaarik fi lansaari waalmuhaajira. ayagana saasay xaaladoodu ahayd. aad baa loo shaqeeyey maalinta. rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrimooyinka maalinta uu arkayay waxaa ka mid ahaa camaar ibnu yaasir oo godka qodaaya, khandaqa la qodahaya, oo dhagxaantii guraaya, oo waxyaabo badan qaadaya. wuxuuna rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam camaar ilaahay ha barakeeyo, waxaad dili doonta fi'ada iyo kooxda baaqiyada ah ee xadgudubka badan ee gardarada markaa badan. xaaladaa marka lagu jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacday mucjizooyin aad iyo aad markaa u waaweyn. mucjizooyin ayaa yimidoo tusaalaynaya in nebiga nebinimadiisay xaq tahay sala allahu calayhi wasalam, in nebinimadiisu ay run tahay sala allahu calayhi wasalam. xaaladahaasaa markaa yimid ayadoo arrintu ishaa marayso ay saxaabadu ka shaqaynayaan oo ay camal qabanayaan ayaa waxaa ku soo baxday sida xadiiska uu tilmaamay kudyo wax lagu magacaabo ama dhul gawaan ah oo looga shaqayn waayey sayftii waxyaabaha ay wadeen ama garweynta ama yaambada ama babiilkii ayaa looga shaqayn waayey. rasuulka sala allahu alayh wasalam bay u yimideen. markaasay dhaheen yaa rasuul allah saasaa dhacday, annagoo godkii qodayna sakradan iyo gawaankan soo baxay ii dhiiba buu yidhi. waa loo dhiibay 3 mar buu ku dhuftay sala allahu calayhi wasalam. 3 darabaad ayuu ku dhuftay. markii kood markuu ku dhuftay buu yidhi allahu akbar, ilaahay baa weyn. waxaa laysiiyey mafaatiixdii shaam. allan ku dhaartay waan arkayaa qusuurtooda gudguduudan hadda meesha aan taaganahay. mar labaad buu kor u qaaday sala allahu calayhi wasalam uu ku dhuftay. allahu akbar, mafaatiixdii faris baa laysiiyey. wallahi qasrooyinkoodii madaa'intoodii cadcadaa ayaan u jeedaa buu dhahay.
marna saddexaad ayuu kor u qaaday. mar walba uu kor saas u qaado calooshiisu way muuqanaysaa, laba dhagax baa ku xiran shiddada iyo baahida daraaddeed. markii saddexaadna wuxuu yidhi allahu akbar, mafaatiixdii yaman baa la isiiyey. wallahi waan u jeeda abwaabtii sanca, makaanka aan hadda taaganahay baan sanca albaabaheeda ka arkayaa buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. waa meeshay hadhow munaafiqiinta marka kale orod ku yimaado ay gaalada isugu yimaadaan ay dhihi doonaan rasuulka nebi moxamed been buu noo yaboohay, been buu noo yaboohay, faris iyo ruom yaan furanaa buuna yidhi, haddana masquul ma aadi karno cabsi daraaddeed, suuli baanu aadi karin cabsi daraaddeed. maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran. moxamed nebi moxamed iyo ilaahayba kada mee wax kale noo yaboohayn ma jiro. god bay nagu rideen, wayna halaageen, makaanu tahlukay nagu rideen. munaafiqiin baa saa ku hadasha, xaaladooda saa ah. saddexdii mar rasuulku waa bishaaraystay sala allahu calayhi wasalam. xaaladda markay meeshaa maraysa walaalayaal munaafiqiinta si fiican baanu arki doonaa suuradda markaan tafsiirkeedii gudaheeda galagalnee. axzaab mar allaala markii arrintu meesha uu maraysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu aad iyo aad u tilmaamay inuu shuurada badiyo, inuu mushrikiinta wixii laga samayn lahaa iyo waxyaabaha in badan markaa tilmaamo. sidaa daraaddeed ayaa wuxuu adeeg u diray sacad bin mucaad iyo sacd ibni cubaada. waa laba zaciim oo reer ansaareed ah, waa labadii oday, waa labadii kaabaqariib, waa labadii u ballan qaaday nebi moxamed inay difaaci doonaan. wuu kala tashtay, wuxuu yidhi waxaa aad aad noogu dhib badan qabiilada qadfaan lagu magacaabo. reer qadfaan qabiiladooda way xoog badan yihiin. war ka waran haddaan waxoogaa timaar iska siino magaalada madiina, timaarta ka soo baxda sulug marka loo dhigo 3 meelood meel haddaan siino sanadkan say nooga tagaan, ay qitaalka muslimiinta u joojiyaan, oo ay dagaalka naga dhaafaan, balka warrama xaaladda noocaas ah yaa soo haraya. inta kale wax taas u weyn markaa ma aha, waan ku luqluqan karnaa. mushrikiin horta iska badbaada, war raggan aan wax iska siino. xaaladda ayuu u soo jeediyey labadii zaciim, labadii kaabaqabiil, labadii oday ee sacd ibni mucaad iyo sacd ibni cubaada ah. hadalka ay ku hadleen wallahi hadal cajiib badan buu ahaa. hadallada ay yidhaahdeen waxaa ka mid ahaa laa wallahi ma atinaa adaniya, siin mayno dullinimo nafafyaalkeena, jahli anagoo ku jira oo jaahiliin ah, oo aan weli islaamin, oo aadan noo imaanin, oona nebi moxamed aaminin, nama hunguriyaysan jirin raggaan. wallahan xabad timira siin jirin, waa naga hebaysan jireen, wayna naga baqi jireen, kamana cabsan jireen. rasuulkii allow seen dini u qaadanaynaa dullinimo, seen u qaadanaynaa anagoo rabbulcaalamiin aaminsan, annagoo ilaahay ku kalsoon subxaana wa tacaala, ayadoo nebi moxamedna dhex taagan yahay oo aan adiga ku aaminay, seen timirteena u siinaynaa? ma dhici karto. waxay naga helaan bay leeyihin soo daa rasuulka ilaahay, ha baqina hana ka cabsanin. annaga ilaahay subxaana wa tacaala cizadan iyo diintan iyo karaamadan uu nagu siiyey ayaanan waxba uga reebanaynin. raggaana wax aan ka cabsanayna ma jiro, wax aan siinaynana ma laha. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo guulna siin doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala ballantuu noo qaaday wuuna siin doonaa. ilaah subxaana wa tacaala nama hoojin doono, manana dullayn doono. bacdanay xaaladdu sidaa tahay, raggaan noodaa rasuulka ilaahayow, waayo anagoo jahli ku jira yaanan waxba siini jirin. see u siinaynaa maanta? xaaladda noocaasa ma jirtay noqonaysaa. sidaa darteed saxaabada way baahan yihiin. godaa la qodooyaa, dhufiis baa la qodayaa, muslimiintii baa mataqaanaa dhinac kasta looga yimid. waata ilaahay tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaa'atkum junuudun faarsalnaa calayhim riixan wajunuudan lam tarawha. dhinac kastaa looga yimid. aayadda ku xigtaa noo tilmaami doonta id jaa'uukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. taana waxay tilmaamaysaa jiha kasta in laga soo koobay, dhinac kasta markaa looga yimid. saa darteed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaala markii xaaladdu ay meesha maraysay, ninka lagu magacaabo abi talxa ayaa baxay baa la yidhi, ama jaabir ibni cabdillah sida riwaayadaha qaarkood ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi intuu fasax ka qaatay rasuulka aqalkiisii dib ugu laabtay, xaaskiisii buu u tegey. markaasaa wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan soo arkay, juuc iyo baahi baa haysay,
istiidaanka markuu ka soo qaatay kadib baahidii nebiga uu ku arkay darteed ayuu yihi walaalay wax ma haysaa aan nebi moxamed siino iyo saxaabada meesha godka qodaaya ilan magaalada madiine lagama bixin dhufayska magaalada laga dhex qodaayay sidaa darteed ayaa waxay tiri waxaan haynaa wax yar haddii nebi moxamed iyo dhowr qofood ay noo yimaadaan 3 ama 2 waanu dharjin karnaa laakiin qoomkaasoo dhan hadday noo yimaadaan waxba uma hayno aan markaas siino xaaladda markay meeshaa maraysay ayaa waxay soo saartay baa la yidhi shaciir yar waa saac oo shaciir ahoo ayaga u haray waa xari yar oo canaaq ahoo boodgal ah amase guri joog ahna waa gowracayo jaabir baa qalay ayadana waxay taxinisay shiiday kistii yarayd ee shaciirta ama sareenka ahaa intaa ka bacdi bay tiri orod rasuulka usoo waxana nagu fadeexayni wardacaanku waa yar yahay si tartiiba rasuulka ugu sheeg sala allahu calayhi wasalam saa darteed ayaa dharigii isagoo karaaya ama dabka la saaray cajiinkiina la cajiimiyey ayuu rasuulku aaday jaabir ayadoo dhaysaa nagu fadeexayni war jaabiroo hana ceebayn maanta war ceebta naga ilaali ayadoo xaaladeedu saas ay tahay ayuu jaabir dhaqaaqoo rasuulka u tegay sala allahu calayhi wasalam kolkaasuu yidhi yaa rasuula allah طacaam yar ayaan samaynay tacaal anta warajul ama rajulayn nin ama 2 nin iyo adiga rasuulkii allah wax yar baa la sameeyey war ii sheeg jaabirow intay la eg tahay raashinka intaa iyo intaabay la eg tahay rasuulku intuu qiriye buu dhaha yaa ahla khandaq war nimanka dhufayska qodayo jaabir baa sunca iyo su-ur noo sameeyey zabyaray faxayi halaa bikum soo baxa sabyaray buu noo sameeyey dhammaan rasuulku waa soo kaxeeyey sala allahu calayhi wasalam asagaa soo hogaaminaya jaabiraa aqalka iskale waa usoo horeeya gabadhii xaaskiisa ahayd koombo shaciir ah waa koombo yareyda shiishiida wax yar weyn waa shaciir ah iyo mataqaanaa wax xar yar oo markaa boodgal ahoo aan raacin waxaraha ama riyaha banaanka aadi aan duurka u raacin aan soo banaanka kasoo qaraabta aan ku jirin yaa la qalay mar allaala markay meel dheer ka aragtay raggii oo soo socday waxay tiri bika wa bika balaayo kugu dhacday jaabiro waxay mooday in asaga uu soo wada kaxeeyey saa darteed bay yidhi walaalahay caynin buu dhahay waayo intii aad ii sheegtaa rasuulka u sheegay asagaa arrintaas sameeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuu soo galay wuxuu yidhi aawi dherigii baa la tusiyey wuu ku tufay aawi cajiinkii baa la tusiyey wuu ku tufay barakuu alla ugu duceeyey walaalay ma dhejin kartid muufadaane gabar khaabisad ah oo muufa dubtoy ah oo muufada si fiican loo duba taqaana u yeera buu dhahay adi ma samayn kartide dherigan ayaan dabka laga soo dejinin saa darteed waa la soo guraya keliya 10 baa loo soo gelinaya raggii khandaqa ku jiray baahi baa haysa diinta alla la difaacaya ilaa subxaana wa tacaala la dhihi maayo annagu haddaan jundigii nahay baahidan ku shaqayn mayno waxa loo shaqaynaya waa allah waxa wax loo taray waa diintiisa waxa la raba in sharaf la gaarsiiyo waa diinta allah kor loo qaado jannay raadinayaan baahidooda uma jeedaan dhibkii waxyaabaha kale saaran arki maayaan 10 baa loo soo geliyey 10kii soo gashada muufadii inta loo dhigo ayay baxayeen dheriga lagama soo dejinin ay 10 say ahaayeen yay baxeen oo raggii way gadoomeen baa la yidhi waana wada dhargeen dhammaantood jaabir wuxuu yidhi dherigeenii sidiisii buu u karayaa cajiinkiina weli sidii baa loo cajiiminayaa oo qooshkii weliba sidiisuu markaa u yaalaa nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam ninka ugu dambeeyey ee cunay buu ahaa sala allahu calayh wasalam inta soo hartay buu yidhi ordaha qaada oo jiiraanka markaa wada gaarsiiya qisada axzaab waa qiso aad iyo aad u qiimo badan qisatu axzaab waa qiso aad iyo aad u habboon una wanaag badan loona baahan yahay dadka muslimiinta inay aad ugu cibro qaataan waa dersi cadiim ahoo dheer waa dersi taariikh mudan waa dersi taariikhi ah ragga isi soo bahaystay oo meel kasta ka yimid ee rabbi subxaanahu wa tacaala dabaysha uu usoo diray muslimiinta nimco looga dhigay ayagoon gacanna tuurin gamuuna tuurin ilaahay uga gargaaray say ku dambaysay natiijadoodii say noqotay see loo kala dirdiray sayse muslimiinta maalintaa u badbaadeen waa dersi aad iyo aad u dheer qisada axzaab inta ka dhiman iyo tafsiirka inta ka dhimanna duruusta nagu soo socotaa iyo habeen dambe casharka haddii rabbi yidhaahdo yaanu ku soo qaadan doonaa balse aad iyo aad ha loo dadaalo rabbina ha laga baqo daacada allana ha lagu socdo diintan islaamka sahal naguma soo gaarin dhib iyo baahi mashaakil iyo rafaad cadow dhinac kasta ka yimaada yaa laga soo dhex dusay
oo laga soo dhex baxay oo rabbi loo soo tala saartay geed caleentiisaa loo soo cunay walaalayaal baahi baa lagu soo joogay mashaakil adag baa lagu sugnaa calal baa dhagax loogu soo xirtay nebi maxamed baa loo ashtakooday asaa ka darnoo 2 dhagax watay diinta islaamku waa diin noocaas ah macaankeedii xalaawadeedana taasay ku jirtaa dadka muslimiinta ahna waddadii ay mareen dadkaa hore ee shawkada iyo qodaxda iyo dhibka leh inay maraan waa lagama maarmaan si ay u helaan dadkaa wixii ay heleen say u gaaraan sharaftii ay dadkaa gaareen say u guulaystaan dadkaasay u guulaysteen waa arrin muhiim oo loo baahan yahay balse axsaab qisadeeda iyo sida raggaa loo kala dirdiri doono iyo sida dabaylaha loogu diri doono iyo sida nebi moxamed qab iyo xeed uu u samayn doono duruusaha noogu soo socdaa ee habeen danbaanu ku arkayna haddii rabbi idna subxaana wa tacaala iyo inta tafsiirka markaa nooga dhiman dulgii aan ku talagalnay balse alla xaqanka baryanaa inuu xaqana waafajiyo wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam ee laga soo saaray magaaladii madiina ee soo aaday dhanka khaybar waayo khaybar iyo shaam bay u kala carareen waa markii aan marayna suuratu xashr raggii laga soo ceeriyey meesha shaam iyo waxay u kala carareen khaybar mar allaala markay meesha tageen ayaa kuwii khaybar aaday ciilkii iyo xanaaqii hayay darteed ayaa waxay xiriir la sameeyeen qabaa'ishii quraysh iyo qabaa'il fara badan si ay naftooda uga argutaan qurayshoo ciil qaniinsan oo laga badiyey beder oo uxudna dhibaato kale la gaarsiiyey iyo jab weyn oo mar uun moxamed yaa ku duula aada gacan sii siina ay ka taagan tahay ayay raggan soo galeen magaalada maka salaam ibnu abi xaniif nin lagu magacaabo xuyay ibnu akhbar rag noocaasa ahaa intaa kabacdiba intay u yimaadeen abu sufyaan oo markaa quraysh hogaaminayay ayaa waxay u sheegeen inay xarbi rabaan inay ku qaadaan moxamed iyo muslimiintana ay dabar gooyaan ayaguna inay gacan siiyaan abu sufyaan baa yiri baa la yidhi war marka hore waxaad nooga jawaabtaa idinka ahlu kitaab ahe war annaga iyo moxamed keenee fiican yaa khayr ku taagan yaa wanaag ku socda taa marka hore nooga jawaab markaasay yidhaahdeen idinkaa ka toosan oo ka hanuun badan wax ay yihiin moxamed iyo dadkiisa ma jiro waayo sukaanin baa tiro beydkaad degan tihiin xujaydaad waraabisaan bii sawiiq baad siisaan kacbadaad xaaqdaan sidaa darteed idinkaa kaga fiican dhinac walba markaasuu alla soo dejiyey alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab yu'minuuna biاljibti waالطaaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila war ka warrama dadka xaaladoodu saas ay tahay nasiib kitaab ah la siiyey jibti iyo taaquud rumaynaaya shaydaan iyo ibliis raacaya kaafiriintana dhahaya idinkaa ka toosan dadka mu'miniinta ah intaa ka bacdi waxay u soo jihaysteenay soo aadeen qabiilo qadfaan la yidhaahdo oo aad yaad u xoog badan oo aad yaad u hub badan ayagana waxay kula heshiiyeen muslimiinta in lasoo tirtiro lana soo dabargooyo xaalado fara badan oo noocaasaa dhacday walaalayaal markay arrintu saa marayso ayaa nebiga loo tashtay iyo saxaabadii kaafiriin dhammaan xulafay samaysteen waxay damceen inay sameeyaan hal mar inay baabi'iyaan oo ay dabargooyaan muslimiinta iyo nebigada xaaladdu markay meeshaa maraysay mushrikiinta laftigooda warqad bay u qoreen dadkii ayaga xulafada laayeen reer bani asad ayagana waxay dheen haye soo baxa ayagoo jameeco fara badan ah ciidan xoog leh ah aan laga hortegi karin aan layska waabin karin ayay soo dhaqaaqeen baa la yidhi tiradoodu waxay cagacagaynaysay baa la tilmaamaa 10,000 10,000 oo isbahaysato ah yaa muslimiinta maalintaa kusoo duushay imisay ahaayeen muslimiinta inta u dagaalamaysay 3,000 oo keliya walaalayaal 3,000 oo keliya ayay markaa ahaayeen xaaladda markay meeshaa maraysay lasoo dhaqaaqay oo dahraan meel la dhaha lasoo degay sidaa darteed ayaa ciidankaa faraha badan oo iyagoo wata maantana kama dambays go-aan lagu soo gaaray in la tirtiro islaam iyo muslimiin iyo wax allaala waxa ku abtirsadee nebi moxamed madax u yahay ayaa meesha laysugu yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintu markay meeshaa maraysay ee uu maqlay jamaca iyo xooggaa faraha badan inuu yimid muxuu sameeyey saxaabadiisa ayuu majlis shuuro ah oo deg deg ah la qaatay wuu la tashtay iskama weyne keligii taliya ma ahan asoo waxyi samada uga soo degaaya yuu haddana saxaabadu la tashanaya
yuu haddana weydiinayaa maxaa sameeya waxaan waxyi lagu amrin. xataa mararka gobol kamida waxaa dhicaysay haddii arrin uu damco asaga inuu sameeyo ra'yi soo jeediyo, ra'yigiisa ra'yi aan ahayn ay saxaabadu keenaan inuu kiisa ka tanasulo oo midka saxaabada uu qaato. xaaladaana way dhici jirtay mararka gobol ka mid ah. saxaabada ayuu la tashaday, sidii tashi badan loo samaynahayay waxaa go-aan lagu gaaray in ragga layska celiyo. salmaan alfarisi ilaahay khayr fara badan ha siiya, asagana wuxuu dadka u jideeyey qandaq in la qodo god, meelahan timirta iyo geedaha iyo guryaha ay ku yaalaan inta layska daayo, meesha af bannaan in god dhufays ahoo khandaq ah laga qodo. xaaladaasuu usoo jeediyey. annagu haddaan farisiin nahay, cadowguna aysaa nooga badan yihiin, khandaq baan isku dhufaysaynaa, wax baan isku oodnaa, godkaa in la qodo ayuu ishaaray. nebigana waa ku waafaqay sala allahu calayhi wasalam fikraddaa qiimaha badan ee la keenay, waxaana isla markii lagu dhaqaaqay in godkaa la qodo. looma kala harin, looma kala yaraysan. ciidankii intii joogtay meesha nebi moxamed uu ugu horeeyay sala allahu calayhi wasalam, godka qoditaankiisii ayaa markaa la aaday. godka qoditaankiisii ayaa loo gudagalay ayadoo la rabo in laga degdego dhaqso intuusan ciidanku imaanin, meeshana markaas soo gelin. rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisaba baahi bay ku sugnaayeen. xilligaa godkaa la qodahayay baahi ayaa markaa jirtay. tacaam yar bay haysteen oo shaciir ah, wax yar oo subag ah oo raaxadii isbedeshay kaabaa markaa lagu cunayay. 3 maalin casaro iyo calcalalo ee saxaabadii, weliba dhagaxna qaar baa sheegay inay ku xirteen. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu kala qayb qaadanayay. muslimiinta godka qoditaankiisa dhammaan way ka wada qaateen. farqi kama lahayn mid taajir iyo mid faqiir ah, mawle iyo mid amiir loo yahay. xataa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ciidduu guraayey, ciidduu qaadahayay, ilaa la tilmaamay calooshiisa caddaanteedu inay ciidda markaa qarisay. xaaladaasuu rasuulku ku sugnaa sala allahu calayhi wasalam uu ku hadlayay ama ay ku hadlayeen waxaa ka mid ahaa: allahuma lawlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa salayna faanzil الsakiinata calayna وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولاء قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. رسولك وحدها هذا أذيب أهانها إلهي لولا أنت، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. هذا أذيب أهان لهين وأذن هنونين لهين وبحقنا تصل لهين كفارة سوكلا نقول لهين ما ننهنونين ولا تصدقنا ولا صلينا مروا مين لهين ما صدقي صلهين منتو كان لهين السكيني حسدوني الله نبسو دجي وطبك الأقدام إله قمده نصف أدان عدوغ لقلنا كوة الصوبحي سترأى ماشا صوفة ديستي قد بغوا علينا رب وينقصوا حد قدبين وينقصوا قوقين كبر إسلويني بي لي مدين هدي سفدنا أي دونان أنبوان ديدني ومركوات ديدني عبكو ذا كربو أها مسلمين تنفتوا ويترجيسايين مالنتا hadalaa afkooda ka soo baxayay way camal qabanayeen. hadallada ay ku hadlayeen saxaabadu waxaa ka mid ahaa: naxnu aladiina baayacuu muxammadan, kuwii nebi moxamed la mubaayacooday cala alislaami baanu nahay. islaam baan nebi moxamed kula mubaayacoonay in allaala inta aan anagu jirno. maa baqiina abadan. rasuulku waa u ajiibo wuxuu yidhi: allaahuma inahu laa khayra ilaa khayra alaakhira. ilaahu khayr aan khayrka aakhira ma ahayn ma jiro. رواية كلا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. أيها نصاصي حالده ذو أهيد بالو شقي مالنتا. رسولك صلى الله عليه وسلم أريمويك مالنتا وأركاي وحكمتها عمار ابن ياسر وقدك قدايا خندق لقدايا أو دكحانتي قرايا أو حيا ببران قاضايا وحيون الرسول كتلمامي صلى الله عليه وسلم عمار إلهي هبركايا وحدني دونتا في أضاء كوحدة باقية حدقدبك بضان قرطهرة مركا بضان حالة مركا اللي وجري. رسولك صلى الله عليه وسلم وحد بعضي معجزوين آدي مركا أواوين معجزوين أيا يمدو تصالينا هيا النبي نمديسي حطها صلى الله عليه وسلم. النبي نمديسو أي رمتها صلى الله عليه وسلم. حالة صار مركا يمد أيضا أريد أشياء مريسو وي صحابته كشقين أيام
oo ay camal qabanayaan ayaa waxaa ku soo baxday sida xadiiska uu tilmaamay kudyo wax lagu magacaabo ama dhul gawaan ah oo looga shaqayn waayey sayftii waxyaabaha ay wadeen ama garweynta ama yaambada ama babiilkii ayaa looga shaqayn waayey. rasuulka sal allau alay wasalam bay u yimideen markaasay dhaheen yaa rasuul allah saasaa dhacday annagoo godkii qodayna sakradan iyo gawaankan soo baxay ii dhiiba buu yidhi. waa loo dhiibay 3 mar buu ku dhuftay sala allahu calayhi wasalam 3 darabaad ayuu ku dhuftay. markii kood markuu ku dhuftay buu yidhi allahu akbar ilaahay baa weyn waxaa laysiiyey mafaatiixdii shaam allan ku dhaartay waan arkayaa qusuurtooda gudguduudan hadda meesha aan taaganahay. mar labaad buu kor u qaaday sala allahu calayhi wasalam uu ku dhuftay allahu akbar mafaatixdii faris baa laysiiyey wallahi qasrooyinkoodii madaa-intoodii cadcadaa ayaan u jeedaa buu dhahay. marna 3aad ayuu kor u qaaday. mar walba uu kor saas u qaado calooshiisu way muuqanaysaa 2 dhagax baa ku xiran shiddada iyo baahida daraaddeed. markii 3aadna wuxuu yidhi allahu akbar mafaatiixdii yaman baa la isiiyey. wallahi waan u jeeda abwaabtii sanca makaanka aan hadda taaganahay baan sanca albaabaheeda ka arkayaa buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. waa meeshay hadhow munaafiqiinta marka kale orod ku yimaado ay gaalada isugu yimaadaan ay dhihi doonaan rasuulka nebi moxamed been buu noo yaboohay faris iyo ruom yaan furanaa buuna yidhi haddana masquul ma aadi karno cabsi daraaddeed suuli baanu aadi karin cabsi daraaddeed. maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran moxamed nebi moxamed iyo ilaahayba kada mee wax kale noo yaboohayn ma jiro. god bay nagu rideen wayna halaageen makaanu tahlukay nagu rideen. munaafiqiin baa saa ku hadasha xaaladooda saa ah. 3 mar rasuulku waa bishaaraystay sala allahu calayhi wasalam. xaaladdu markay meeshaa maraysa walaalayaal munaafiqiinta si fiican baanu arki doonaa suuradda markaan tafsiirkeedii gudaheeda galagalnee axzaab. mar allaala markii arrintu meesha uu maraysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu aad iyo aad u tilmaamay inuu shu'rada badiyo inuu mushrikiinta wixii laga samayn lahaa iyo waxyaabaha in badan markaa tilmaamo. sidaa daraaddeed ayaa wuxuu adeeg u diray sacad bin mucaad iyo sacad ibnu cubaada. waa 2 zaciim oo reer ansaareed ah. waa 2dii oday waa 2dii kaabaqabiil waa 2dii u ballan qaaday nebi moxamed inay difaaci doonaan. wuu kala tashtay wuxuu yidhi waxaa aadaad noogu dhib badan qabiilada qadfaan lagu magacaabo. reer qadfaan qabiiladooda way xoog badan yihiin. war ka warama haddaan waxoogaa timaar iska siino magaalada madiina timaarta ka soo baxda sulug marka loo dhigo 3 meelood meel haddaan siino sanadkan say nooga tagaan ay qitaalka muslimiinta u joojiyaan oo ay dagaalka naga dhaafaan balka warama xaaladda noocaas ah yaa soo haraya. inta kale wax taas u weyn markaa ma aha. waan ku luqluqan karnaa. mushrikiin horta iska badbaada war raggan aan wax iska siino. xaaladda ayuu u soo jeediyey 2dii zaciim oo 2dii kaabaqabiil 2dii oday ee sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada ah. hadalka ay ku hadleen wallahi hadal cajiib badan buu ahaa. hadallada ay yidhaahdeen waxaa ka mid ahaa laa wallahi ma atinaa adaniya siin mayno dullinimo nafafyaalkeena jahli anagoo ku jira oo jaahiliin ah oo aan weli islaamin oo aadan noo imaanin oona nebi moxamed aaminin nama hunguriyaysan jirin raggaan. wallahan xabad timira siin jirin waa naga hebaysan jireen wayna naga baqi jireen kamana cabsan jireen. rasuulkii allow seen dini u qaadanaynaa dullinimo seen u qaadanaynaa anagoo rabbulcaalamiin aaminsan annagoo ilaahay ku kalsoon subxaana wa tacaala ayadoo nebi moxamedna dhex taagan yahay oo aan adiga ku aaminay seen timirteena u siinaynaa. ma dhici karto waxay naga helaan bay leeyihin soo daa rasuulka ilaahay ha baqina hana ka cabsanin. annaga ilaahay subxaana wa tacaala cizadan iyo diintan iyo karaamadan uu nagu siiyey ayaanan waxba uga reebanaynin. raggaana wax aan ka cabsanayna ma jiro wax aan siinaynana ma laha. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo guulna siin doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala ballantuu noo qaaday wuuna siin doonaa. ilaah subxaana wa tacaala nama hoojin doono manana dullayn doono bacdanay xaaladdu sidaa tahay. raggaan noodaa rasuulka ilaahayow waayo anagoo jahli ku jira yaanan waxba siini jirin. see u siinaynaa maanta xaaladda noocaasa ma jirtay noqonaysaa. sidaa darteed saxaabada way baahan yihiin. godaa la qodooyaa dhufis baa la qodayaa
muslimiintii baa mataqaanaa dhinac kasta looga yimid. waata ilaahay tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaa'atkum junuudun faarsalnaa calayhim riixan wajunuudan lam tarawha. dhinac kastaa looga yimid. ayadda ku xigtaa noo tilmaami doonta id jaa'uukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. taana waxay tilmaamaysaa jiha kasta in laga soo koobay, dhinac kasta markaa looga yimid. saa darteed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaala markii xaaladdu ay meesha maraysay ninka lagu magacaabo abi talxa ayaa baxay baa la yidhi, ama jaabir ibni cabdillah si riwaayadaha qaarkood ay ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi intuu fasax ka qaatay rasuulka aqalkiisii dib ugu laabtay, xaaskiisii buu u tegey. markaasaa wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan soo arkay, juuc iyo baahi baa haysay. istiidaanka markuu ka soo qaatay kadib baahidii nebiga uu ku arkay darteed ayuu yidhi walaalay wax ma haysaa aan nebi moxamed siino. iyo saxaabada meesha godka qodaaya, ilan magaalada madiine lagama bixin, dhufayska magaalada laga dhex qodaayay. sidaa darteed ayaa waxay tiri waxaan haynaa wax yar, haddii nebi moxamed iyo dhowr qofood ay noo yimaadaan 3 ama 2 waanu dharjin karnaa, laakiin qoomkaasoo dhan hadday noo yimaadaan waxba uma hayno aan markaas siino. xaaladda markii meeshaa maraysay ayaa waxay soo saartay baa la yidhi shaciir yar, waa saac oo shaciir ahoo ayaga u haray, waa xari yar oo canaaq ahoo boodgal ah amase guri joog ahna waa gowracayo jaabir baa qalay. ayadana waxay taxinisay shiiday kistii yarayd ee shaciirta ama sareenka ahaa. intaa ka bacdi bay tiri orod rasuulka u soo waxana nagu fadeexayni, war dacaamku waa yar yahay. si tartiiba rasuulka ugu sheeg sala allahu calayhi wasalam. saa darteed ayaa dherigii isagoo karaaya ama dabka la saaray, cajiinkiina la cajiimiyey ayuu rasuulku aaday jaabir, ayadoo dhaysaan nagu fadeexayni, war jaabir oo hana ceebayn maanta, war ceebta naga ilaali. ayadoo xaaladeedu saas ay tahay ayuu jaabir dhaqaaqoo rasuulka u tegay sala allahu calayhi wasalam. kolkaasuu yidhi yaa rasuula allah, طacaam yar ayaan samaynay, tacaal anta wa rajul ama rajulayn, nin ama 2 nin iyo adiga. rasuulkii allah wax yar baa la sameeyey, war ii sheeg jaabirow intay la eg tahay raashinka, intaa iyo intaa bay la eg tahay. rasuulku intuu qiriye buu dhaha yaa ahla khandaq, war nimanka dhufayska qodayo, jaabir baa sunca iyo suur noo sameeyey zabyaray, faxayi halaa bikum soo baxa. sabyaray buu noo sameeyey. dhammaan rasuulku waa soo kaxeeyey sala allahu calayhi wasalam, asagaa soo hogaaminaya. jaabira aqalka iskale waa usoo horeeya. gabadhii xaaskiisa ahayd koombo shaciir ah, waa koombo yarayda shiishiida wax yar weyn, waa shaciir ah iyo mataqaanaa wax xar yar oo markaa boodgal ahoo aan raacin baxaraha ama riyaha banaanka aadi aan duurka u raacin aan soo banaanka kasoo qaraabta aan ku jirin yaa la qalay. mar allaala markay meel dheer ka aragtay raggii oo soo socda waxay tiri bika wa bika balaayo kugu dhacday jaabiro. waxay mooday in asaga uu soo wada kaxeeyey. saa darteed bay u yidhi walaalahay caynin buu dhahay, waayo intii aad ii sheegtaan rasuulka u sheegay asagaa arrintaa sameeyey. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuu soo galay, wuxuu yidhi aawi dherigiini, dherigii baa la tusiyey, wuu ku tufay. aawi cajiinkiini, cajiinkii baa la tusiyey, wuu ku tufay. barakuu alla ugu duceeyey. walaalay ma dhejin kartid muufadaane, gabar khaabisad ah oo muufa dubtoy ah oo muufada si fiican loo duba taqaana u yeera buu dhahay, adi ma samayn kartide, dherigan iyaan dabka laga soo dejinin. saa darteed waa la soo guraya keliya, 10 baa loo soo gelinaya raggii khandaqa ku jiray. baahi baa haysa, diinta alla la difaacaya. ilaa subxaana wa tacaala la dhihi maayo annagu haddaan jundigiinahay baahidan ku shaqayn mayno, waxa loo shaqaynaya waa allah, waxa wax loo taray waa diintiisa, waxa la raba in sharaf la gaarsiiy waa diinta allah kor loo qaado. jannay raadinayaan, baahidooda uma jeedaan, dhibkii waxyaabaha kale saaran arki maayaan. 10 baa loo soo geliyey, 10kii soo gashada muufadii hidib inta loo dhigo ayay baxayeen. dheriga lagama soo dejinin, ay 10 say ahaayeen yay baxeen oo raggii way gadoomeen baa la yidhi, waana wada dhargeen dhammaantood. jaabir wuxuu yidhi dherigeenii sidiisiibuu u karayaa,
cajiinkiina weli sidii baa loo cajiiminayaa oo qooshkii weliba siisuu markaa u yaalaa. nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ninka ugu dambeeyey ee cunay buu ahaa sala allahu alayh wasalam. inta soo hartay buu yihi ordaha qaada oo jiiraanka markaa wada gaarsiiya. qisada axzaab waa qiso aad iyo aad u qiimo badan. qisatu axzaab waa qiso aad iyo aad u habboon una wanaag badan, loona baahan yahay dadka muslimiinta inay aad ugu cibro qaataan. waa dersi cadiim ahoo dheer, waa dersi taariikh mudan, waa dersi taariikhi ah. ragga isi soo bahaystay oo meel kasta ka yimid ee rabbi subxaanahu watacaala dabaysha uu soo diray, muslimiinta nimco looga dhigay, ayagoon gacanna tuurin gamuuna tuurin, ilaahay uga gargaaray. say ku dambaysay natiijadoodii, say noqotay, see loo kala dirdiray, sayse muslimiinta maalintaa u badbaadeen. waa dersi aad iyo aad u dheer. qisada axzaab inta ka dhiman iyo tafsiirka inta ka dhimanna duruusta nagu soo socotaa iyo habeen dambe casharka haddii rabbi yidhaahdo yaanu ku soo qaadan doonaa. balse aad iyo aad ha loo dadaalo, rabbina ha laga baqo, daacada allana ha lagu socdo. diintan islaamka sahal naguma soo gaarin, dhib iyo baahi, mashaakil iyo rafaad, cadow dhinac kasta ka yimaada yaa laga soo dhex dusay oo laga soo dhex baxay oo rabbi loo soo tala saartay. geed caleentiisaa loo soo cunay walaalayaal, baahi baa lagu soo joogay, mashaakil adag baa lagu sugnaa, calal baa dhagax loogu soo xirtay, nebi moxamed baa loo ashtakooday, asaa ka darnoo 2 dhagax watay. diinta islaamku waa diin noocaas ah, macaankeedii xalaawadeedana taasay ku jirtaa. dadka muslimiinta ahna waddadii ay mareen dadkaa hore ee shawkada iyo qodaxda iyo dhibka leh inay maraan waa lagama maarmaan, si ay u helaan dadkaa wixii ay heleen, say u gaaraan sharaftii ay dadkaa gaareen, say u guulaystaan dadkaasay u guulaysteen. waa arrin muhiim ahoo loo baahan yahay. balse axzaab qisadeeda iyo sida raggaa loo kala dirdiri doono iyo sida dabaylaha loogu diri doono iyo sida nebi moxamed qab iyo xead uu u samayn doono duruusaha noogu soo socdaa ee habeen dambaanu ku arkayna haddii rabbi idna subxaanahu watacaala iyo inta tafsiirka markaa nooga dhiman burgii aan ku talagalnay. balse alla xaqan ka baryana inuu xaqana waafajiyo. wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala.